بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شعبك الصوماليات مال كستا oo ay joogan gudaha dalka iyo dibaddaba waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. waxaan idin leeyahay ciid mubaarak kullu aamin wa antum bikhair. marka hore aniga oo ku hadlaya magacayga iyo kan dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaan hambalyo iyo bogaadin u dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo guud ahaan ummadaha islaamka munaasabada barakeysan ee Ciidul Fitriga awgeed. waxaan Ilaahay uga baryayaa inuu naga aqbalo soonkii, salaadii, sadaqadii iyo dhammaan cibaadooyinkii aan gudanay bishii barakeysneed ee Ramadaan. waxaan si gaar ah hambalyo ugu dirayaa ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed kuwaas oo habeen iyo maalin u taagan difaaca dalka iyo badbaadinta shacabka iyaga oo waliba sooman. geesinimadooda iyo nafurnimadooda waxay udub dhaxaad u yihiin nabadda xasiloonida aan maanta ku naaloonayno. ciidul fitriga waa munaasabad farxad iyo isu naxariisasho, iscafin iyo isu duubni u ah bulshada muslimiinta ah. waa maalin aynu ku xasuusanno qiimaha walaaltinimada iyo iscaawinta. sidaa daraaddeed waxaan ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed in ay xoojiyaan midnimada, wadajirka, iscaawinta iyo is-ixtiraamka si aan u dhisno dal nabdoon oo barwaaqo ah. walaalayaal, diinteena suubana waxayna baraysaa in maalmahan barakeysan aynaan iloobin dadka danyarta ah, kuwa aan awoodin in ay helaan farxadda iyo raaxada ay qoysas badan wadaagayaan. sidaa darteed waxaan ugu baaqayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed, ganacsatada, culimada, hay'adaha samafalka inay isu kaashadaan sidii loo gargaari lahaa dadka tabaalaysan, loona hubiyo in qof walba uu dareemo farxadda ciidda. sidoo kale waxaa muhiim ah in aynu si gaar ah u xasuusanno carruurta agoonta ah iyo dadka nugul ee waayay daryeelkii ay u baahnaayeen. carruurtaasi waxay u baahan yihiin jacayl, daryeel, garab istaag. waana waajib ina saaran dhammaanteen in aynu ka shaqayno sidii aan uga farxin lahayn maalmahan ciidda ah, uguna abuuri lahayn rajo iyo kalsooni mustaqbalkooda ah. ciiddan waxay ku soo aadaysaa iyadoo ay dalka ka jirto abaar aad u daran oo saameysay dadka iyo dunyadaba. dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay wadaa dadaallo ballaaran oo loogu gurmanayo bulshadeena ay abaartu hayso. shacabkana meel walba oo ay joogaan waxaan ku boorinaynaa in ay kaalintooda ka qaataan gurmadka walaalahooda tabaalaysan. sidoo kale colaadaha ka aloosan bariga dhexe ayaa iyaguna uga sii daray xaaladda, saameynna ku yeeshay ascaarta badeecooyinka muhiimka u ah nolosha bulshadeena. dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay ku baaqaysaa in dagaaladaasi si degdeg ah loo joojiyo, khilaafkana lagu xalliyo ama lagu dhammaystiro wada hadal si looga baaqsado masiibooyin ay adag tahay in laga soo kabto mustaqbalka dhow. annagoo garwaaqsan duruufaha ka soo cusboonaaday suuqyada caalamiga ah iyo saameynta ay ku yeesheen qiimaha maciishadda, waxaan si gaar ah ugu baaqayaa ganacsatada Soomaaliyeed inay muujiyaan mas'uuliyad qaran iyo damqasho bulsho, hoosna u dhigaan qiimaha badeecadaha daruuriga ah inta suurtagal ah, gaar ahaanna maalmahan ciidda ah, si ay u fududaato nolosha shacabka danyarta ah loona wadaago farxadda ciidda. si hawshaas ay u noqoto mid taabagal ah, xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waxay magacaabaysaa guddi ka kooban wasaaradaha maaliyadda, qorsheynta, ganacsiga iyo warshadaha, rugta ganacsiga, xeer ilaalinta guud iyo hanti dhowraha guud. shacabka Soomaaliyeed ee sharafta leh, sanadihii u dambeeyay waxaa dalka ka socday dadaallo xooggan oo lagu xoojinayo amniga, dib u dhiska dawladnimada iyo horumarinta dhaqaalaha. dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaa ka go'an inay sii wado dadaaladaas si loo xaqiijiyo mustaqbal wanaagsan oo ay helaan jiilasha soo koraya. sidoo kale waxaan baaq nabadeed iyo cafis 90 maalmood ah
وفيدينيا دمان dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka tirsan ururada al-shabaab iyo Daesh aan u baaqayaa inay ka soo noqdaan wadada khaldan ee ay ku habaabeen una soo laabtaan bulshada Soomaaliyeed ee ay ka mid yihiin dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay mar walba diyaar u tahay inay soo dhaweyso dhalinyaradaas una abuurto mustaqbal sharaf leh oo ay kaga qayb qaataan dhismaha dalkooda sidaas darteed waxaan hay'adaha amniga iyo garsoorka faraya in ay soo dhameystiraan habraaca fulinta cafiskan sidoo kale maanta oo kale sanad ka hor waxaan ku dhawaaqnay furitaanka goglo wada hadal oo loo dhan yahay si ay isugu yimaadaan siyaasiyiinta hogaamiyaasha bulshada iyo dhammaan daneeyayaasha dalka loogana wada tashado arrimaha masiiriga ah ee ummadda Soomaaliyeed muddo sanad ah oo ka soo wareegtay xilliga goglahaas waxaa la qabtay goglo wada hadal oo miro dhal ah kuwaas oo bulshada Soomaaliyeed marqaati ka tahay doorka hogaamineed ee madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya hormuudka ka ahayd isu soo dhawaanshaha isu tanaasulka iyo ku xallinta khilaafaadka hab nabadeed ayaa aasaas isaldhig u ahaa goglahaas iyo wada hadalladaas waxaan rabaa inaan mar kale ku celiyo in goglahaasi ay wali furan yihiin wada hadalkuna uu yahay jidka kaliya ee lagu gaari karo xal waara iyo dawladnimo dhameystiran walaalayaal ugu dambeyntii waxaan Ilaahay ka baryayaa inuu dalkeena siiyo nabad waarta barwaaqo iyo